السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله دمان ولا لها كتحن كنا حيران كنال كتيوري waxaan hambalyo kale u soo jeedinaynaa walaal ku soo guuleystay imtixaanka oo ka mid ah walaalaha reer Belgium ayna ka dhigan tahay rikoor cusub ama diiwaanka inuu galay insha Allah tacaala walaalkeena Maxamed wuxuu ku jira si toos ah khadka insha Allah bidina karim marka waxaan u horeen fiirinaynaa natiijadiisa iyo qaabka ay ahayd iyo asiga aan ku warsan doono insha Allah tacaala warqadiisa ama natiijada hadaan eegno Maxamed waxa uu keenay kontonka wuxuu ka keenay 41 su'aal waa inta la ogol yahay Belgiumka imtixaanka shuruucda wadada waa 50 su'aalood waxa laga rabaa ugu yaraan inaad saxdo 41 exactly ama xaqiiq ahaan wuxuu saxay 41 Maxamed إن شاء الله محمد حقول لنا هي همبليو بقولك بقول محمد وولال دجن أما ولالكي وجوهري أما نوجوهري أو كمية تيم كنا أما كمية بهذا تيوري سومالي كمية أو عشرة كقاطي أو ريب الجنة أو مركي وجوهري سي ولال ريب الجنة كمية أو سوق امتحان كا كده أنت مركا إن و diiwaanka noo galay oo qof hadda ugu horeeyay tahay Maxamed Belgium uu degan yahay gaar ahaan gobolka Antwerpen insha Allah tacaala Maxamed hadii aan ku wareysano su'aashii ugu horeysay insha Allah saa wax u soo baratay macnaha saa wax u fahantay iyo imisa fahantay iyo macnaha dadaalka muujisay markaad macnaha soo qaadaysa inta soo qaadin ka hor laga rabo inaad noo sheegto insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الرزاق هذا وما سنتاي ثانك يو أني هو مركور إله ما سن كسكورة أديكم أرك جهد بدن قلي ثانك يو برادا مركور كالني هو امتحان كورت إلهي ويسوف الضمان أنتي تاريخ ذهد لحي طبعا كبش أغسطس هذا كجرنو عن إلهي وسوق ما شاء الله marka waxaan isku dayay in aan ku noqdo 2 week isku xigta waxa juhdi ku bixinay macnaha ما شاء الله maadaama aan shaqeey jiray awalkii hore jaanis fiican uma heli jirin si fiican marka hadda 2 week oo isku xigta marka la isku daro waxay noqonaysaa 10 maalin ay noqonaysaa marka weekendiga laga reebo صح سبحان intaas aan ku noqonahay marka alxamdulillah ilaahay ugu soo guulay brada maadaama aan ardaydaada kamid ahaa thank you marka xiga imtixaanka horta niyahow haddii aan kaaga waramo examka waxaa lagu keenaa 70% foreign for learning ama iyo inhaling صح soddon kale soo haray marka waxay noqonaysaa highwayga iyo boorarka waxaas ay noqonaysaa iyo police iyo alcohol iyo waxaas si fiican laakiin boqolkiiba 70 waxa lagu keenaa foreign for learning iyo inhaling boqolkiiba 70 waxa lagu keenaa tiri foreign-giga oo loo yaqaano yani mudnaanta yaa ka leh ama yaad ka leedahay iyo sidoo kale waxa tiri inhaling oo ah si dadka loo baas gareeyo ama gaariga kale looga hormaro soma wixii ka soo harayna calaamadaha iyo boorarka iyo sidoo kale askarta iyo qamriga aad tiri صح marka dadka waxaan fari lahaa inay maaragtay intaas ay iska xifdiyaan si maaragtay ugu fududaato macnaha aniga jaanis waxaan u helay 2 week oo isku xigta hal habeen ma seexan si fiican macnaha maanta markaan soo dhaco mani jabeenin isla biri waa ku noqonay hadana 16 aan ka bilaabay 16 dhibcoodaan keenay waa noqday 20 22 25 30
ilaa marka dambe أكسو aan قولي macnaha aan ka soo guuleysto صح ha marka waxay caawina waxaa ka mid ah exam waxaan ku sameynay oo online-ka afar eer intaan kala baxo صح ani walaalaha ka mid ah oo asna ardayda ka mid ah Cabdirashiid la dhaho ani صاحبك asaga meesha ku sameyn jirnay galab kasto marka qofka inuu istijaabiyo intuusan tagin waa fiican tahay ها مايا إن وارون إن دتكنا وكل طليا كله عشرة مكي خاتان إني مرة ah والله بقى سمين exercise يعني تجاو إني وح إن عشرة أما إن أنا قصي أما إن أي قتان كتب برتان مرة والله بقى كل عليان سيدا صاحبك وسمي عبد الرشيد أما هذيك بقى أد معناه أدور سمي سيمبو ومهم إن عنها تبرته وهرين إنت ماشي تجد كار marka dhibka dadka ani haysan jirin waxaa kamid ahaa xagga oo luqadda سيف على الوضع أدولك luqadda xoogaa igu adag marka erayga meesha ku qoran su-aasha lagu weydiiyey haddaadan fahminna jawaabta mase ma keeni kartid macnaha صح waa inaad fahantaa su-aasha waxay ka hadlayso inaad fahantid waay macnaha سيف عن marka dhibka haysta anigu wuxuu kamid ah waxyaabaha haystay kamid ahayd macnaha luqadda ma fahamtid luqadda inaa wixii marka kan wuxuu iga caawiyey examka wuxuu iga caawiyey maadaama aan jaanis fiican haysto aan gurigeyga joogo in aan kusoo cesho kara macnaha macna mar walba oo aan kusoo cesho kara ilaa caawa ahaa mar aan salaad dukanayo maahan iyo mar inaan kusoo cesho kara maanta oo dhan ay iga dhammaanayn si fiican marka dadka waxaan kula talin lahaa in ay exam badan sameeyaan ay maaragtay ay dadaalaan macnaha okay dadka waxaa kula talin inay aynan midda kale aan ku darayna waxay tahay inaysan niyad jabin sababtoo ah marka maanta soo dhacdid ha isdhihin berri waa soo dhacay haddana ha isdhihin macnaha waxaa niyadda gashataa inaad berri soo qaadaysid si fiican aniga 2 week isku xigta 10 maalin isku xigta hal maalin ma dhasanani maanta markaan soo dhaco berri waa ku noqonayo maalina waxaan keenay 40 markay ugu dhaweyd صح 40 maxaa iga dhiman hal dhibac iga dhiman maalinta ku xigta 20 aan keenay macnaha anoo isdhahay maanta 40 waa ka badin doontaa macnaha ma fahamtid marka dadka marka waxaan kula talin lahaa inaysan niyad jabin ee maaragtay ay qalbigooda ay dhagax ka dhigaan macnaha marka waxaa leedahay dadka waa in ay juhdi dheeraad la yimaadaan inaysan isdegan ay macnaha haday qasab my brother juhdi dheeraad haddaadan samaynin macnaha horta waxaan loo dhidin horta lama ma fahamtid exactly aniga 2 week isku xigta wallahi hurdo fiican hataa ma seexan inaan been kuu sheegay marba inaan isfaanina ma rabo hurdo fiican ma seexanin subax markaan soo kaco aan quraacdo balanta badana waxaan qabsan jiray aniga 9 ama 3 si loo yaqaan 9 saac ama 3 galabnimo صح aan qabsan jiray si doorkii iyo subax inta u dhaxaysa haddana aan exam badan u sii sameeyo haddana صح macna u finus meeso exercise u faniso adiga si u socotay maalintii ugu dambeysay aan soo qaadi doono subaxan ka dhigay fiiriya ina waxaan qoray inaan kaaga sheekeynay sagaal maalmood waxaan tagay galab maalinta ugu dambayso 10aad waxaan tagay subaxan soo qaaday ma sha Allah marka waxaan dhihi lahaa dadka foran farlininka aad ugu muhiimsan sababtoo ah waxa lagu weydiinaa waxay tahay qofka makaa leeyahay baaskiilkan makaa leeyahay mas'ada kale intaasaa muhiimsan ugu muhiimsan يعني waa foran farlininka iyo inhalinka waxa waaye de su'aalo oo ay ku badan imtixaamaadka haddana dadka inta badan ay ku atay in fahmaan boorarkani waxaa ka muhiimsan de inaad qofkan badbaadisid qofkan inaad dilin macnaha bartaan baaskiilka wadato iyo cunugan baaskiilka wata macnaha inaad badbaadisid labadaas ugu muhiimsan marka aniga ilaahay markiis xamdigiis waa kusoo guuleystay baraada waa maasan tahay inkastoo aan su'aalo badan ayaga caawisan kusoo weydii jiray su'aalo badan oo markaan kusoo qalda aan whatsapp ugu soo diri jiray aan ku dhihi jiray niyo kuwaana igu adag ii fasir adigana waa maasan tahay baraada ilaahay ma aragtay ajri xasanad ilaahay ka sii baraada waa maasan tahay waa isku leenahay insha Allah wax hadda oo fikir wanaagsan ma wax yani casharada qaabkan u dhigno wax oo ka khaldan ama wax ku soo kordhinaysa maanta ma jira
ها niyo dadka ardayda oo meesha ku jirta waxaan ma aragtay u fiican ama ugu soo kordhin lahayd aan ku sheegi lahaa waxaa ka mid ah in group assignment aad samaysid oo exam aad u qabatid macnaha week hal mar si isku ogaadaan macnaha inay awoodooda intay la-egtahay inay ogaadaan. Okay, akaa dhex galo marka ma meel baa iskugu imanaynaa mise online ka ku sameynaynaa? online-ka Okay, maasan insha allah waa sameynaa dawladda. maadaama dadka isku meel ay wada joogin oo la kala fog yahay macnaha oo qaarkoodna ay waddan kale joogaan qaarna gudaha ay joogaan si fiican si imtixaan ugu qabatid halkan weegi hal mar ama la mar wixii la awoodo si ay isku tijaabiyaan ay u ogaadaan macnaha meeshay marayaan macnaha iyo wax kale ma jira fikir kale iyo gabdho dad waxaa jira inay xishoonayeen oo dadka su'aalaha aan weydiinin iyagoo su'aalo qaba ama aan su'aasha fahmin oo ku dhahayo waan fahanay kuwaasoo kale inaa caawisid oo aad tirahdeen niyahow ma fahamta su'aashaan maxaan su'aashaan inaa ugu celisid gabdhaha ugu badan qaara iska xishoonaya brother marka inaa weydiisid aad tirahdid waxaan ma fahanteen mase waa idinkugu soo celiyaa si fiican yani dad waxaa dadaa luqadda ku adag tahay. Okay, dad waxaa leedahay ay jiro oo waxay ayagoosan fahmin ay ku dhahayaan waan fahanay ayago xishoonayo soo ma okay kuley taas ciidana waa ku mahadsantahay maxamedow kuley adiga marar badan inaad arta moogi ama inaad dareentay dadka ama walaalaha waa ku celceliyaa su-aasha haddaan la fahmin fadlan yaan hore u socon qofkaana fahmin yuusan la xishoon hay weydiiyo marka hadda tii inaan sii la wajibaarno ama qofka si gooni ahaan yani aan u dhaho ii weydiiyo haddaanan fahmin ay noqonayso ma nacam okay hadduu qofka ka xishoonayo groupka lagu wada jiro ama meesha publicada ah ka xishoonayo haddaadan fahmin su-aasha meel ku qoro si gooni ahaan oo adiga yani macnaha private ahaan iisoo weydiiyey soo ma dadka isku cashir ma dada buug kood maraya kuwa buugga labaad maraya kuwa buug saacad ku jira marka kuwii isku group ah oo buug koowaad oo kale ku jira inaa saaman u samaysid imtixaan u qabatid kuwa groupka labaad ku jirana iyagana sidaas oo kale u samaysid si fiican waa maasan tahay insha Allah waa maasan tahay insha Allah wax adiga su'aal oo adiga ku quseeya ama su'aal kala qabtid hadda macnaha weydiinaysa ma jirtaa niyo su'aal hadda ma qabani alxamdulillah marka insha Allah intaasaan dadka aan maarad ku dhiirigeliyo iyo ardayda waxaan dhihi lahaa niyo yaala niyad jabin macnaha qofka hadduu niyad jabo waxba macnaha natiijo keenayo aniga maalinta ugu adkeed waxay ahayd 40 inta keenay maalinta ku xigta waxaan keenay 20 okay waa macnaha niyad jab aad u xun macnaha de marka haddaa isdhaadid maanta shalay 40 keentay maanta waa 20 keentay marka wax badan u dhaxeeya haddaa isdhaadid macnaha waa niyad jabaysaa macnaha yaa la niyad jabina taagan ma warta insha Allah waxaan filayaa ama aan rajeynayaa insha Allah walaalaha casharada barta ama YouTube ku xiranba inay mataqaanaa fikirkaada iyo dhiirigelintaada ay maqli doonaan ugu horeyn aniga waxaan ku leeyahay fikirka iyo ra'yiga nagu soo kordhisay iyo dhiirigelintaba waad ku mahadsan tahay 100% mar labaad maxamedow waxaan ku leenahay mabruuk alf mabruuk insha Allah wajiga koowaad ka soo gudubtay oo ah xeerarkii iyo shuruucdii waxaad u gudbi doontaa insha Allah taala wajiga labaad ama qaybta labaad oo ah macnaha inaad soo barato macnaha practicalkii oo aadna imtixaan ku soo qaado insha Allah waxaan ku leenahay anoo ku hadlaayo bahda theory Soomaali in ilaahay si fudud oo kugu soo sahlo kuna saqiro ayaan ku leenahay insha Allah maxamedow assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh sidoo kale barada calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh